بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkani waxaan idinku soo gudbin doonaa muuqaal aad u cajab badan muuqaalkani waxa uu ka dhexeeya amase waa ugaarsi dhex maraya bisad iyo mas kuwaas oo ku nool saxaraha haddaba waxaa aad la yaab u ah in xayawaan mas ah oo aad khatar u ah ay goobtan ku haleeshay kuna ugaarsanayso bisad bisadani waxay adeegsanaysaa xeelado aad fara badan hadda waxaa inoo muuqata in ay ka taxadirayso inuusan masku haleelin lana haleelin qaniyadiisa waxaanay adeegsanaysaa xeedalo aad u layaab badan markasta waxay ka taxadiraysaa madaxa maska iyo qaniyadiisa oo ay aad iska ilaalinayso waxay samaynaysaa xarakaad waxay u fiirsanaysaa oo ay ka fikiraysaa goobta ay ka ataagi lahayd masku kama liito isaguna waxa uu difaacanaya oo uu ilaalinayaa inay madaxa qaniyada ka soo gaarsiiso waayo alaaba masku sidiisaba madaxa ayuu ka dhintaa mar haddii madaxa ay joogi ka gaadho amase dhabarka waa mid aan dhaqaaqi karin haddaba waxay isku dayaysaa inay furfuriso si uu u bilaabo socod taas oo ay kaga faa'iidaysato janis marka uu isfidiyo maadaama oo ayna fursad u helaynin ay ku disho inta uu isku duuduuban yahay bal haynu eegno bisadan iyo maskan waxa kala qabsada waad aragtaa hadda sida ay ula tacaalayso iyo sida uu isaguna isku difaacayo hadda waxaa muuqataa inay gaarsiisay dhaawacyo waayo hidiyaheeda ayaa ah qaar aad u halis badan taas oo gaarsiinaysa nabar haatan waad aragtaa masku uu isdhiibay waxa aanu joojiyey dhaqdhaqaaqii faraha badnaa iyada lafteedu waxa ay dareemaysaa daal iyo cadash fara badan waanay ku guulaysatay ugaarsigeedii haatan bal waxaynu eegaynaa mid kale oo ka mid ah bisadaha ku nool magaalada bisadani waxay ku dadaalaysaa ama ay safiirfiirinaysaa wixii ay ugaarsan lahayd haatan waxa ay dhaqdhaqaaq iyo xarakaad u samaynaysaa si ay u hesho quuta daruurigeedii maalintaas ay ku qadayn lahayd goobta waa goob dalxiis waxaa ku sugan dad kuwaas oo quudinaya shimbiro iyaduna shimbiraha lafteeda ayaa ay ka dhiganaysaa quudkii ay cuni lahayd waatan waxa ay bilowday sideedaba bisadda waxay isku ugaarsi yihiin libaaxa oo waxaa la isku idhaahdaa the cat haatan waxay u dhabaraysaa waxaanay ka taxadiraysaa in ay dareemaan shimbirahan ku mashquulsan quudkii ay siiyeen dalxiisayaashu daawadayaal ilaahay subxaana wa tacaala noolo kasta waxa uu siiyey karti taas oo uu ku ugaadhsanayo oo uu ku helayo quuta daruurigiisa runtii tan waxaan ka baranaynaa dhaqdhaqaaqu iyo xarakaadku inuu yahay midda kuu suurta gelinaysa inaad hesho risiqa allah kuu qoray taasoo ku imanaysa ficilka aad adigu samaynayso ahaydna mid kaaga qoran xagga rabbi sida aan ka dhuganayno ama aynu ka dheehanaynaba muuqaalkan waxaynu arkaynaa haatan inay shimbiraha qaar dareemeen halista ku soo waajahan
waanay ka duuleen qaarkood. Haddaba bisadu waxa ay fiirfiirinaysaa bal inay hesho mid dagan, taas oo ka soo hadha shimbiraha. Balse shimbiruhu waa qaar aad u taxaddar badan, kana taxaddaraya masiibadan ku soo fooda leh. Dhammaantood waa ay duuleen, halkaasna waxaa ku guuldarraysatay bisadan oo rabtay inay gaadho guul, taasoo uga dhignayd inay hesho quuto daruurigii ay ugaadhsan lahayd maalintaas. Runtii hadda way iska rajo dhigtay, waanay iska fadhiisatay. Sidii ay u fadhiday ayayse sii dheeraysatay. Sidaa ayay nabadgelyo daawadayaal. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.